kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana from si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah idinkugu soo gudbino. qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah ciidanka CID-da Soomaaliya oo gudaha u galay xabsiga dhexe ee Muqdisho gacantana ku soo dhigay 5 qof oo isugu jira dhaqaatiir iyo askar la tuhmayo in ay ku lug lahaayeen weerarkii dhiiga uu ku daatay ee dhawaan ka dhacay xabsiga Muqdisho. farmaajo waxa uu isku haystaa in kursiga uu leeyahay ayuu ku dhawaaqay mid ka mid ah wasiiradii horey u soo maray Soomaaliya. hay-adda Somali Community Foundation oo deeqdii ugu ballaarneed oo gurmad ah gaarsiisay dadkii saameynta xooggan uu ku yeeshay webiga Shabeelle fatahaadda uu ku sameeyay Afgooye iyo deegaano hoos yimaada. mawjado siyaasadeed ayaa laga soo sheegayaa dalka Ethiopia kadib markii xabsi guri laga dhigay wasiirkii difaaca dalkaasi. Mareykanka oo mar kale dhabar jibiyay qorshe madaxweyne Farmaajo uu ku doonayo in mar kale muddo kororsi uu ku sameysto iyadoo horey ay soo ristaag ugu sameeyeen arintaas guud ahaanba beesha caalamka. dowladda Soomaaliyana waxaa la ogaaday qorshaha ay ka leedahay in ciidamo iminka lagu daabulo qaybo ka mid ah gobolka Gado. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Hiil Shacab TV waxa uu ku tirsan yahay waa taageeradaada. warkii oo dhan qaar ka mid ah ciidanka CID-da Soomaaliya ayaa gudaha u galay xabsiga dhexe ee Muqdisho iyagoo gacanta ku soo dhigay 5 qof oo isugu jira dhaqaatiir iyo askar halkaasi ka howlgalaysay. ciidamo ka tirsan hay-adda dambi baarista booliiska Soomaaliya ee CID-da ayaa waxa ay 5 qof ka soo xireen gudaha xabsiga dhexe ee Xamar iyadoo la xiriirinayo dadkan inay ku lug lahaayeen weerarkii Isniintii aynu ka soo gudubnay dhiiga uu ku daatay ee ka dhacay gudaha xabsiga. 5 qof oo ay saakay xireen ciidanka amniga ayaa kala 3 qof oo ka tirsan dhaqaatiirta xabsiga dhexe ee qaabilsan daaweynta maxaabiista iyo 2 qof oo ahaa askar si gaar ah u qaabilsanayda haynta furayaasha qolalka maxaabiista. sidoo kale xogta aan helayno ayaa sheegaysa in 5 qof ay ka mid tahay haweeney dhaqtarad ah waxaana weli socda baaritaano ku aadan in ay ku lug leeyihiin iyo in ay ka madax banaan yihiin. CID-da ayaa shalay iyo doraad dhowr jeer waxa ay gudaha u galeen xabsiga dhexe waxayna la kulmeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta waxaana loo sheegay in baaritaanada ay wadaan ay yihiin kuwii ugu cuslaa ay sameeyaan. guddigii loo xil saaray in ay kiiskan baaraan ayaa wada dadaalo xoog leh waxaana soconaya baaritaan adag. tirada dadka loo xiray weerarkan ilaa iminka waxa ay gaarayaan 9 qof waxaana la aaminsan yahay in tirada ay intan ka badan karto marka loo eego baaxadda howlgalka ay sameynayaan ciidanka dharcadka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. xariga shalay iyo maanta ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale shalay halkaas laga soo xiray 4 ka mid ah ciidanka asluubta Soomaaliya oo 2 ka mid ah ay yihiin saraakiil sarsare. sidoo kale taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa shalay bedelay dhammaan ciidankii ilaalada xabsiga dhexe iyo qaar ka mid ah ciidanka ku sugan kontaroolada laga soo galo xabsiga. warar lagu kalsoon yahay oo ay helayaan warbaahinta gudaha ayaa sheegaya in ciidanka dhammaantood la bedelay lana keenay kuwa kale oo aad u feejigan isla markaana ciidankaas lagu eedeeyay in ay gudan waayeen waajibaadkooda qatarna ay geliyeen guud ahaanba nolosha dadka maxaabiista ah iyo askarta ka shaqeysa gudaha xabsiga. haddii aynu eegno dowladda Mareykanka ayaa waxa mar kale dhabar jibin ay ku sameysay qorshe madaxweyne Farmaajo la fahansan yahay inuu wado oo la xiriira in muddo kororsi uu sameysto xilligan. dowladda Mareykanka ayaa qoraal cusub ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan shirka dhuusamareeb 3 iyo doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan. qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay inay si aad u sugayso natiijada shirka 3aad ee dhuusamareeb inkastoo ay jirto cabsi la xiriirta in ay u eg tahay in shirka uusan qabsoomi doonin waqtigii loogu talagalayna oo 15 bishan dib uga dhici karo. dowladda Mareykanka waxa sidoo kale ay dalbatay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku dhacdo isla markaana la sameyn wax muddo kordhin ah oo aysan iyagu aqbali doonin. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay si aad u sugaysaa natiijada
shirka dhuusamareeb 3 baahida loo qabo wada tashi ballaaran iyo isu tanaasul dhab ah waa muhiim. hanaanka doorashada waa inuu noqdaa mid ay saldhig u tahay taageerada guud ee dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo saamilayda kale ee siyaasadda dalka. doorasho waqtigeeda ku dhacda muddo kororsi la'aan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. qoraalka ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa ah mid kale oo u muuqda in ay hadallo kulul oo fariin ah u dirayaan hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha shacabka. Mareykanka ayaa aanan ahayn markii ugu horeysay ee uu si kulul uga hadlo qorshe la sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in gabi ahaanba uu muddo kororsi 2 sano ah ku sameysto, iyadoona la sheegay in xaaladda ay noqon karto mid beesha caalamka ay isku dhinac uga soo wada jeestaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. war degdeg ah oo iminka naga soo gaaraya qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegayaan qarax ayaa ka dhacay deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe. goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warar horudhaca oo soo gaaraya warqabadka Hiil Shacab TV waxa ay sheegayaan in ay ahayd meel maqaayad ah, waxaana jira khasaare kala duwan. hase ahaatee wixii ka soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad uga bogan doontaan hadduu eebbe ka raali noqdo. mid ka mid ah wasiiradii horey u soo maray Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo inuu iska dhaadhiciyay in isaga uu u gaar yahay kursiga dalka looga arimiyo. Cabdiraxmaan Odawa, xogayaha madasha xisbiyada qaran oo ahna mudana ka tirsan golaha shacabka, horeyna wasiir uga soo noqday gudaha dalka, ayaa mar kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka oo xiisad hor leh ka dhaliyay dalka. xogayaha ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo isa siiyay kursiga xilli la fahansan yahay in uu dhawaan daaqada ka saaray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. sidoo kale waxa uu xusay in madaxweyne Farmaajo uu si cad u baalmaray nidaamka dimuqraadiga ah, maadaama uu haysto in isaga keligii loo shaqeeyo oo uu kursiga isaga leeyahay. Odawa ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba uu lumay isla xisaabtankii dowladda, isagoona carabaabay in xukuumaddii Khayre ay daaqada uga baxday arrintaas oo horseeday khilaaf hor leh. Xasan Cali Khayre waxa uu qaatay in Farmaajo kursiga sadaqo ku siiyay, Farmaajona waxa uu qaatay kursiga in isagu leeyahay oo loo shaqeeyo. niyo dimuqraadiyadu sidaa ma ahan ayuu yiri Odawa oo arrintan ka hadlayay. waxa uu intaasi sii raaciyay xisaabinta ayaa maqan, waxa ay sameeyeen baarlamaankii waa la gaday oo nus wasiirada laga dhigay, nus mushaar baa loo qoray, gudoonkii waa la diriray, wixii la kala hantiyay iyo wixii la kala haatiyayba waxa xumaaday isla xisaabtankii markii dambe iyagaaba iscunay. Odawa oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u dhaliila dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay marka loo eego in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo kororsi xilligan uu sameysto ay tahay wax aan la aqbali karin, marna aan gudaha dalka Soomaaliya ka hirgeli karin, isagoo ugu baaqay dowladda in doorasho waqtigeeda ku dhacda dalka ay ka qabato. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ciidamo badan waxa ay geysay gobolka Gado, iyadoo hadalhayn badan arrintaasi ay ka dhalatay. warar naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ciidamo badan ay ka dejisay halkaasi. ciidamadan oo diyaarad looga qaaday Muqdisho ayaa waxa laga dejiyay Doolo, iyadoo arrintan ay ku soo wajahantay xilli dhawaan la ogaaday in heshiis afgarata ay gaareen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo oo kulamo ku qaatay Dhuusamareeb. sidoo kale askartan ayaa ku biiraysa ciidamo isugu jira booliis iyo military oo horey u joogay magaaladaasi iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gado. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dhaqdhaqaaqyo xoogan haatan laga dareemayo Doolo, waxaase la filayay in toddobaadyada soo socda dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamada gabi ahaanba ka saari karto gobolka Gado, ciidamada Jubbalandna ay halkaasi dib ugu soo laaban karaan. Ethiopiana haddii aynu eegno mowjado siyaasadeed oo hor leh ayaa laga soo sheegayaa kadib markii la dhigay xabsi guri wasiirkii difaaca dalkaasi. wasiirka gaashaandhigga Ethiopia Lema Magereza
oo mar ay xulufo dhow ahaayeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la geliyay xabsi guri sida ay warinayaan warbaahinta gudaha dalka Ethiopia. Wargeyska Addis Standard iyo sidoo kale Ethiopia Insider ayaa labaduba waxa ay xaqiijiyeen warkan oo baraha bulshada aad loogu hadalhayay saacadihii ugu dambeeyay. Xogta uu baahiyay wargeyska Addis Standard ayaa sheegaysa in taliyaha ciidamada difaaca Ethiopia General Adam Mohamed uu habeenkii Talaadada u sheegay Lema in uu ku nagaado gurigiisa oo ku yaala wadada Pole ee magaalada Addis Ababa ilaa iyo amar dambe laga soo saarayo. sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda difaaca oo ay ku jiraan xoghayihiisa ayaa loo diiday inay galaan xafiiska wasiirka waxaana goor dambe baaritaan ku sameeyay ciidamada booliiska federaalka Ethiopia. Lema oo Oromo ah ayaa waxa wasiirka difaaca loo magacaabay 18 Abriil 2019. xiriirka Lema iyo Abiy ayaa xumaaday kadib markii uu si furan u cambaareeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isaga oo ka soo horjeestay qorshihii lagu burburiyay isbahaysiga EPRDF kaasi oo lagu bedelay xisbiga PP. xiisada labada mas'uul ayaa ka sii dartay kadib markii la dilay heesaagii Oromada ahaa ee Hachalu Hundessa taasi oo hogaamisay in la xiro shakhsiyaad caan ah oo Oromada u dhashay kuwaas oo loo xiray sabab la xiriira dibadbaxyadii looga soo horjeeday dilka fanaanka. ila wareetyo dhowr ah ayaa Addis Standard u xaqiijiyay in Abiy Ahmed uu ku eedeeyay Lema inuu xiriir la leeyahay Jawar Maxamed oo kamid ah ragga u ololaya Oromada aadna u dhaliilsan siyaasadda uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iminka ku xukumayo guud ahaanba dalka Ethiopia. Jawarna dhawaanahan dhowr jeer ayay dawladdu xabsiga u taxawday isagoo lagu eedeynayo in uu ka shaqeynayo markasta sidii dawladda iyo ammaanka loo xagardaacin lahaa. haddii aynu eegno hay'adda Somali Community Foundation ayaa waxa ay ku guuleysatay in deeqdii ugu badneed ay gaarsiiso dad dhibaato badan ay ka soo gaartay fatahaadii webiga Shabeelle dhawaan uu ka sameeyay Afgooye iyo waliba tuulooyin hoos yimaada. jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa ay u soo wakiisheen hay'adda Somali Community Foundation lacago loogu talagalay in lagu taakuleeyo dadka dhibaatada ay ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyay qaybo kamid ah gobolka Shabeellada hoose gaar ahaan Afgooye iyo tuulooyin hoos yimaada. lacagtaasna jaaliyadda ujeedada ay isaga soo ururiyeen waxa ay tahay in Somali Community Foundation ay si toos ah dadkaas ugu deeqdo. hay'adda Somali Community Foundation waxa ay lacagtan si toos ah ugu soo wareejisay wakiilka Somali Community Foundation u jooga degmada Afgooye ahna gudoomiyaha guddiga maareynta iyo masiibooyinka fatahaadda saameynta dadka uu ku yeeshay Afgooye Xasan Yuusuf Maxamed iyo wakiil ku xigeenka Somali Community Foundation Malele Jeelani Malele iyo dhammaan odayaasha dhaqanka ee halkaas ku sugnaa oo si toos ah ay u gaarsiiyeen dadka dhibka soo gaaray ee fatahaadda saameynta xoogan ay ku yeelatay. xiriiryaha guud ee hay'adda Somali Community Foundation iyo dhammaan madaxda Somali Community Foundation ayaa waxa muslimiinta ay ugu baaqeen in ay ku soo biiraan gurmadka loo fidinayo dadka reer Afgooye waxaana uu sheegay xilligan loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado sidii wax loogu qaban lahaa dadkan dhibaatooyinka kala duwan wajahaya. dhammaan jaaliyadaha ayuu xiriiriyaha hay'adda Somali Community Foundation Xaaji Jamcuun ugu baaqay in ay ula soo xiriiraan si toos ah hay'adda Somali Community Foundation si ay u gaarsiiyaan iyaguna dadka rasmiga ah ee dhibaatadu ay gaartay. dadkan ayaa waxa dhibaatooyinka ay ka cabanayaan kamid ah guryo la'aan, cunno la'aan iyo nolol xumo soo wajahday tan iyo markii guryahooda ay isaga soo barakaceen. iyadoona hay'adda Somali Community Foundation ay mar walba soo dhaweynayso dadka muxsiniinta ah ee doonaya in ay kaalintooda ka qaataan sidii loo caawin lahaa dadka reer Afgooye. ciwaanada shaashada ka muuqda ayaa si toos ah kala xiriiri kartaa hay'adda Somali Community Foundation si aad ugu biiriso sadaqada aad doonayso inaad baxsato dadkaas lagu caawinayo. warkii caalamka oo aad kala socoteen Shacab TV waa naga intaynu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga nabadgelyo.